Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mowduuca maanta waxaan ku soo qaadan doonaa darbijiifkii isku beddelay bara sare oo haysto shahaadada PhD-ga ah. Qofka maanta aan ka sheekeyn doono horumarkiisa iyo in uu gaaro heer sare. Waxaa sabab u ahaa gabar jeclaatay misane nolol foolxumo badan oo ku jiray ka caawisay sidii uu uga bixi lahaa. Kusoo dhawaada mowduuca maanta. Nin dhalinyaro oo muddo ku noolaa nolol culays iyo ciriiri badan ayaa muddo kadib Rabbi ka fayday nolosha foolxumada, kaasoo ku biiray caalamka aqoonta iyo horumarka. Jesse Tesla ayaa in ka badan 10 sano ku noolaa jidadka iyo xabsi, balse ugu dambeyn wuxuu ku guuleystay inuu khabiir ku noqdo dhaqanka awoowayaashiis ee Canada u dhashay, isagoo caawimaad ka helay hooyadiis taasoo ay kala irdhoobeen xilli uu yaraa. Ninkan ayaa muddadaas ku soo qaatay nolol laga xishoodo maadaama uu aroortii u tugsi tagi jiray dhismaha baarlamaanka Ottawa. Wuxuu had iyo goraale ahaa mid imaan jiray taalada biyuhu ku shubmaan, taasoo gudaha dhismaha ku taalay. Wuxuu gacmihiisa ku raadsan jiray shilimaadka ay ku tuuraan dadka halkan soo booqdo. Sidoo kale waxaa mar waliba dusha ka arki jiray ciidanka, wayna cayrsan jireen markay arkaan. Jose ayaa ka soo baxay xarun dhaqan celis isagoo da'diisu ay tahay 32 sano, balse wuxuu ahaa mid ku noolaa jidadka maadaama ay guriga ka soo ceeriyeen awowgii iyo ayeeyadii isagoo jiro da'da 19 sano. Jesse ayaa yidhi, awowgay wuxuu ahaa qof dhaqanka aadaabta ku adag. Wuxuu rumaysnaa shaqada howlkarnimo. Runtii wuu i garaaci jiray haddii aan wax qaldan sameeyo. Wuxuu dhihi jiray, haddii aan mar uun kugu qabto daroogo waan ku ceyrin doonaa. Wuuna ka dhabeeyey. Sida muuqata, ninkan in la ceyriyo waxaa sabab u ahayd in waalidkii ay ku arkeen daroogada kadibna la ceyriyey. Maalin ayaa Jesse ayeeyadii waxay ku aragtay bac ay ku jirto daroogada nooca loo yaqaan kokainta, taasoo ka soo dhacday jeebka Jesse. Markaa kadib waxaa loo sheegay inuu guriga isaga tago. Waxay iila muuqatay adduunkayga inuu soo dhammaaday. Wejiyadooda ayaan ka dareemi jiray inaan qalbijab weyn ku riday iyaga. Sidaasi waxaa bilowgii ku xumaaday noloshiisa. Jesse aabihii ayaa Toronto iskaga cararay kadib markii uu jebiyey sharci magaalada u yaalay. Intaa kadib aabihii ayaa magaalo kale ka bartay haweeney lagu magacaabo Matis Cree. Blanche City waa hooyada Jesse. Sanad ka hor inta aysan la kulmin Sony, 14 jir ayay ahayd sanadii 1972. Haweeneydaas ayaana u dhashay 3 wiil oo kala ahaa Josh, Cherry iyo Jesse. Aabbaha Jesse, Sony, khamri cab ayuu ahaa, sidoo kalena wuxuu isticmaali jiray daroogada nooca heroyinta. Mar walba wuu la dagaali jiray hooyada Jesse. Sidaas darteed Blanche way ka carartay iyadoo wadatay carruurteedii. Waxay muddo ku noolaayeen Moose Jaw, ayada iyo carruurteeda, waxayna ku seexan jireen sariir hagaagsan 3 waqti. Waxbay cuni jireen. Kadib Sony ayaa soo laabtay mar kale. Wuxuu Blanche u sheegay inuu guri iyo shaqo ku haysto Toronto. Blanche ayaa ugu dambeyn ilmihii yaryaraa laga soo watay, kuwaasoo uu ka mid ahaa Jesse. Sony oo ahaa aabbaha, sida aan sheekada marar badan ku sheegay, wuxuu iskaga dhigay qof joojiyey balwadii, laakiin sidiisa ayuu u watay hawshiisa daroogada. Halkaas ayuuna ku burburay qoyskaas. Sony wuxuu ahaa mid aan shaqo helin oo ka been sheegay arrinta shaqada. Ilmihiisana wuxuu baray tuugsi iyo xatooyo nolol khariban. Muddo kadib, xaalku markuu sidaa ahaa, qof deriskiisa ka mid ah ayaa ku wargeliyey waaxda carruurta arrintii ninkaas. Booliiska ayaa yimid, wiilashiina watay. Jesse wuxuu markaas jiray 4 sano. Isaga iyo walaalihiis dib dambe iskuma arkin.
muddo kadibna waxaa loo geeyey waalidiinta Sony. Sheekada bilowgeeda ayaana soo xusnay waa awoowaha iyo ayeeyada uu la noolaa, ugu dambeynna soo ceeriyey. Waxaan qiyaasayaa in waaxda carruurta aysan weligood la xiriirin hooyaday sababtoo ah markaas hooyaday waxaa loo haystay in aysan nadiif ahayn una qalmin hooyanimada. Jesse ayaa sidaas sheegay. Jesse dhibaatooyin badan oo xabsi qayb ka ah ayuu mutay. Muddo kadib waxaa dhacday in ayeeyadiis ay geeriyootay. Waxay isbarteen gabar lagu magacaabo Lucia, waxayna Jesse siisay meel uu seexdo. Kadibna way isfahmeen, ugu dambeynna way isguursadeen. Waxay ila ahayd inaan ku guulaystay lottery oo micnihiisu yahay bakhtiyaa nasiib. Waxaan ahaa derbijiif, ma garanayo waxa ay igu aragtay, ayuu yidhi Jesse. Balse marka uu qofku jecel yahay kuna aamino, waa muhiim in aad naftaada u hurto. Lucia waxay Jesse ka caawisay inuu shaqo ka helo maqaayad 2 sano iyo bar kadibna way isguursadeen. Jesse ayaa waxbarashada shahaadada koowaad ee taariikhda ka bilaabay jaamacadda Toronto ee York University isla sanadkii 2012 isagoo 35 sano jir ahaa xilliga. Waxbarashadii jaamacadda ma aysan ahayn mid fudud. Wuu dadaalay. Sanadkiisii labaad ee jaamacadda waxaa loo diray inuu soo baaro taariikhda hooskiisa. Jesse wuxuu wax ka qoray buugaag badan oo muhiim ah. Qoraalkiisa waxaa loo gudbiyey bare qabiir ku ahaa taariikhda dadka dalka loogu yimid, kaas oo isla markiiba Jesse u shaqaalaysiiyey kaaliyaha baaritaankiisa. Jesse wuxuu soo aaday magaalo ay hooyadii ku noolayd sanadkii 2013, wuxuuna soo arkay hooyadii iyo ehelkiisa. Markaas wuxuu ahaa 37 sano jir. Sidoo kale waxay ahayd markiisii afraad ee uu arko hooyadii. Baaritaankiisii Jesse wuxuu ku muteystay abaalmarino. Wuxuu helay natiijooyin heer sare ah. Kadibna waxaa la siiyey waxbarashada heerka sare ee PhD. Haddana wuxuu taariikhda dadkii hore ka dhigaa York University. Ugu dambeyn waxaa halkaas ku idlaaday noloshii derbijiifnimada maadaama uu 90 digrii isbedelay. Jesse yaanan hilmaamin in ay sabab u ahayd horumarka qof dumar ah oo lagu magacaabo Lucia. Lucia waxay wax badan ka bedeshay noloshii qaribneyd ee Jesse. Dadaal samee, waad horumaraysaa, hana isdhiibin. Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelka. Sidoo kale like saar muuqaalkan, sheertana ha hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay. Waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.